bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka xulka maanta ee kulan network ee magaalada muqdisho. mar kale dhegaystayaal, waa maalinimo isniin ah. taariikhdu waxay ku beegan tahay 14-ka bisha Agoosto sanadka 2017. qodobada aad maantay barnaamijka xulka maanta ee idaacadda kulan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaysa qarax gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho. sidoo kale maanta barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xildhibaanada Hirshabelle oo laga dalbaday in ay caddeeyaan mooshinka ay ka gudbiyeen madaxweynaha Hirshabelle. sidoo kale barnaamijka maantay waxaad ku maqli doontaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo la dardaarmay hooyooyinka Soomaaliyeed. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdifatax Ukun, anigoo Qaasim Qanciye ayaa idinla socodsiin doona dhegaystayaal. gabagabada barnaamijkana waxaad maqli doontaan heestaasi waxay gabagabo u noqon doontaa hadduu Allah awoodda leh ogolaado barnaamijka xulka maanta. mar kale iyo mar kale dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka xulka maanta ee kulan network magaalada Muqdisho. waa hagaag dhegaystayaal, aynu ku bilaabnay barnaamijkeenii. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho. war goordhow soo gaaray warqabadka kulan network Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa inuu ka dhacay qarax gaari meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid gaarigiisa loogu xiray nin la sheegay inuu ahaa taksiile, islamarkaana gaarigiisa uu la qarxay xilli uu marayay agagaarka hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho. ninkii gaariga looga xiray miinada ayaa la sheegayaa in uu geeriyooday, halka ruux kale oo gaariga la saarnaa uu dhaawac soo gaaray. waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo hadda goobta ku sugan. qaybihii ugu horeeyay ee barnaamijka xulka maanta ayaad la socotaan. kulan networkna si toos ah waad uga dhageysanaysaan dhegaystayaal. xildhibaanada Hirshabelle oo laga dalbaday in ay caddeeyaan mooshinka ay ka gudbiyeen madaxweynaha
magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa ka taagan hadalhaynta mooshinka ay madaxweyne cali cabdulaahi cosoble ka gudbiyeen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas. wasiirka warfaafinta hirshabeelle mahad xasan cismaan ayaa sheegay mooshinka ay keeneen xildhibaanada uu yahay mid aan sharci ahayn oo dastuurka jebinaya. waxa uu sheegay in haddii ay caddeen u hayaan dhaliilada ay u jeedinayaan madaxweyne cali cabdulaahi cosoble ay soo gudbiyaan, balse aysan ahayn in ay mooshin iska keenaan. waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweyne cosoble inta uu xilkan hayay uu wax badan qabtay, islamarkaana dhaliilada ay u jeedinayaan aan waxba ka jirin. qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka xulka maanta ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal. warbixinta ugu dambeysa, madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo la dardaarmay hooyooyinka Soomaaliyeed. guud ahaan dhegaystayaal intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka xulka maanta ee kulan network ee magaalada muqdisho. barnaamijka waxaa soo saaray cabdifataax ukun, anigoo qaasim qanciye ayaa idinla socodsiinayay dhegaystayaal. tan iyo barnaamijkan barnaamij la mid ah aan dib ugu kulmi doono maalinta berita, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. iminkana heestii gabagabada ee barnaamijka. daruuraha dhex maraya daygii kuuma orodkuugu dawgalay ana inaanin dilaanahay daqaraadii jacayl qaba dirka ma saaro dushayda waad ka aragtaa dunida idil meeshii addoontaba adigaa u duulo damaashaad ku wada mara dalfoge aanan gaarayn degdegadaad ku tegi kara adan daalin socodo weligaa dekawine udagaali maayo waxbaan ku dhirsanaya abidka ha igaadin udagaali maayo waxbaan ku dhirsanaya warqadan dusha sawirku kaga yaal dawadii qalbiga degdegiiga gaarsiiye warqadan daboolane dusha sawirku kaga yaal dawadii qalbiga degdegii
ما دغضو ضلوي قولوني دعاي قرآن بي وذا درد دالين ويوانا ذو ما دغضو ضدك بي قولوني دعاي قرآن بي وذا درد دالين عذبه دسيدو دمر كلنا ينكي قلبي سديديو عشقنا مرضي عذبه دسيدو دمر كلنا ينكي قلبي سديديو عشقنا مرضي عضيني كدورو يا مويه دوكلنا اللواد دوكلنا اللواد أظني كدورو دادي يا مويه دوكلنا اللواد دوكلنا اللواد عالشغي بغيها نغنى وصد بعدين عدنا الضغن عالشغي عدنا الضغن عالشغي بغيها نغنى وصد بعدين بغيها نغنى وصد بعدين بغيها نغنى وصد بعدين